السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب عيال مالك سبني ذيك شوكتان كسر وهذا ما أنت يو ورك وجوا وين أفلام فيندقة channel كنا وحنا نسوق على دونا ورك قدام بيجي بولود كهندية وحنا ورك نسوق على دونا وحنا كم النقد دونا فيلم كا وور أو قدام بيتي ما أنت oo arbacaha soo baxay iyo saadaasha laga bixinayo filimka kaaba soo qaadan doona wali waxaan eegi doonaa warar kale oo ku saabsan actor-ka weyn Tiger Sharif iyo Hrithik Roshan waxa wax laga weydiiyay hadii ay ku heshiiyeen ninka la garaaci doono filimada la isla jirayo waxa in badan waxa la yiraahdaa wari adal lagu garaaci doona waa in dul qaadataa miyaa uu dhacay heshiis ah in Hrithik iyo Tiger mid markay isfeeri doonaan mid in badan in la garaaco Tiger baa ka sheekeynay arimaha kaayo iyo wali waxaan soo qaadan doonaa maanta qodobo inuu ay qayb ka yihiin Salman Khan oo la soo saaray filimkiisa Dibangi Triq muuqaal ku saabsano mar kale uu ka yaabinaya shaaribkiisii oo khiyaalaha gadaal laga soo bixinay wali waxaan soo qaadan doonaa actor-ka Vidya Jamal waa Janwal oo hadda soo wada filimka Commando 3 iyo sheekooyinka ugu dambeeyay baan ku sheegi doonaa iyo John Abraham iyo filimkiisa oo boors kartidiisii la soo saaray wali waxaan soo qaadan doonaa qodobo uu qayb ka yahay filimka Shahid Kapoor ee lacagta badan soo xareeyay ee Kabirsin yaa garaaci doona ma filimka Dibangi Salman Khan baa garaaci doona ma filimka War ee Tiger iyo Hrithik baa garaaci doona mise filimka Akshay Kumar baa garaaci doona hoos filo waxaan arki doonaa arimaha ku saabsan filimada ka iyo qodobo kale muhiim baan ku soo qaadan doonaa maanta aflaamta diga hadaad saaxiib channel ku cusub tahay noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta wararka ku aadan madadaalada aflaamta diga haddii aan lahayn ku kale sportiguna taariikhaha ku dheehan iyo waxaana wad heli doontaan halkan baad kiri doontaan waayahay maanta waa maalintii la sugayay labada bisha October bay ku beegan tahay waa maalintii la sugayay inuu soo baxo filimka War waa filim aad loo sugayay waxaan isla wada actor-ka Hrithik Roshan iyo Tiger Sharif oo horena film isla keenaya filimkan Hindi aad baa looga sugayay annaguna channel-keen wax badan baan ugu hadalnay filimkii War waa soo baxay waa soo dhow yahay wuu soo bixi rabaa boorsimintiisa baa la soo saaray saan wayaan kan wayaan oo kan balo wayaan wax badan baan ka soo hadalnay War haddaba maanta oo talaado ah labada October waa markii loo madalsanaa in filimku la daawado ugu dambeyntii filimku waa uu soo baxayo Hindiya oo dhan shineemooyinkii maanta waxa wada saaran filimka War Hrithik iyo Tiger oo film isla keenaya waxyaabo filimka xiiso u leeyahay waxay tama taqaana iyagiiba isla heesaya waxa la arki doonaa yaa labadooda dansiga ku fiican iyagiiba isfeeraya waxa la arkayaa labadooda iyo action ku fiican waa wiil yar oo Tiger Sharif wiilkan uu Jack Sharif baa dhaliyo waa wiil laakiin khatar badan isaga Hrithik baa la arkaa cidda filimka ku adkaan doonta laakiin waxa la isweydiinayaa يا إن بدن فيني كان لفيري دورا وحليري وريا تايجرو هذيك Hrithik Roshan باليري ممكن شيء سين باليري نكا إن بدن نكا إن بدن فير بدن لقولوا فض دورا إلين ويش كتير تاو حكا فيلم ذوي كان على تصالحان فيلم كمريكا كإيمان لو تصاب حي مجد يسوي حي هوبس أند شو يسلو ذين جاسون استهم يا ديواني تشانسون فيلم كيسلو ذين بالولا يهي لابد نمو يكون شيء بالولا يهي heshiis bay ku galeen baa leeyahay markay filimka isku dagaali doon ilaa Nadri Atorayal Nadri waa Atoro way ku filim ku jirayaan waxay ku heshiin baa lagu leeyahay yaa in badan la garaaci doona yaa feest ugu badan lagu dhufan doona yaa la laadi doona haranti badan lagu dhufan doona yaa si filimka looga adkaanaya markii Nadri Atoro ay dagaalamaan qof baa laga adkaadaa marka heshiis baa lagu dhexmaray filimka intaan la bilaabin bay labada qof ay jilay ku heshiinayaan baa lagu leeyahay labada qof kan la garaaci doon la bahdilayo يا بهدلك أوغلانيا وعلى مركي ريتيغو أدم بهدلك أوغلادي أما تاجر بقى أوغلاد يعني تاجر أدم أوغلاد بهدلك واليري مسيرتك بقى أوغلادي معناه لو بضع فيلم أتورال بهدلية وهذا لا عيلة وخبر الله أتورال فيلم قد وجع عشان مركي وضان إن بدو حنسو أرك جري بلوان إيو أكشي كومار سنين شتي أكشي كومار من أرك جري وفيلم دو صبرت أدب يوجع لانجرين مركي إسفيري يانو كله مركي أكشي كومار لفيري يو كله كوا سنين شتي ويفرح حسين ويدبل دقيان مركي سنين شتي لفيري يو كوا أكشي كومار با فتح جري إنك سنين أرك جري فيلم أكشي كومار إيو سنين شتي أي كيرن أو كله إن بدن أكشي كومار لفيري جري هذا يهان لاين فيلم دي مهر أو كله إيو ولو مستر عمر دم بديل مدح كانوا فنانين كانوا فيلم دي كله إسلافيري فيت صارت إسلافوليين فيلم بدن كله دون إسلا كيرن أكشي كومار اللي جنعنا معنا جبت لقيني وحال مركل اللي وحال نصب بحي مركل labada actor inay ku heshiinayaan in badan ku garaaca macna iyo ogolow inaan ku raaxaysto macna aan joogto ka galiyo marka filimka ugu dambeeyay Dewani Johnson iyo Jason Statham filimkii Hobbs and Shaw waxa la arkay labada inay ku heshiiyaan yaa laga adkaan doonaa yaana si fiican loo garaaci doonaa inay ku heshiiyaan baa la arkay haddaba Tiger Sharif aysan wax laga weydiyo waxa la idinku kuma heshiiseen baa leeyahay labadiina mid in la jilciyo oo la feero wuxuu leeyahay anigu Hrithik mid wuxuu leeyahay anigu Hrithik wuxuu leeyahay waxaan nahay dad xirfiyan ka dhacay uu leeyahay anigu Hrithik horta maxaan la tirsadaa Hrithik maxaan la tirsadaa uu leeyahay anigu Hrithik waxa weeyaan waan xushmeeyaa waanan ka dambeeyaa buu leeyahay asaga labadeenu wixii filimka wanaagsan baanu sameeyay buu leeyahay macnuhu uu qarinayaa
kolley waan arki doonaa cidda filimka lagu bahdili doono cidda filimka lagu feeri doono cidda daansiga lagu garaaci doono kol waan arki doonaayo filimka waan ku dhex arki doonaa kolley filimkii maanta waa soo baxayo sadal bana laga bixinayaa filimka inta lacag uu soo xarayn doono waxa leeyahay ugu yaraan maalinta kuwaad filimka wuxuu soo xarayn doonaa leeyahay lacag dhan 45 karoor baa leeyahay sida la saadaalinayo cala ay xal filimkii wuu soo baxay akshinadii iyo daansigiiba waa filimka lagu arki doono waxaan arki doonaa ninka lagu raaxay ana horta heestan arkay ee isla qaadayaan heeska waxaa lagu raaxaysanaa Tiger waxaa laga dhigaa mid aan waxba ahayn laga dhigayaa Suudaan soo ciyaarayo kan baa soo galay Tigerka ay dhax taagaya marka ninka la bahdili doono war waynu arki doonaa kolley labada actor mid baa lagu baashaalayay waxyaabaha kale ugu muhiimsanayna aflaanta hindiga iyana waxa kamid ah filimkan waxa la soo baxay filimka aabaha Ramjaran ee ninka la yiraahdo macnaheedu maanta shanaamooyinka Hindiya waxa la saaran filimka uu wado aabaha Ramjaran ninka lagu magacaabo Chiranjeevi baa isna la saaran shanaamooyinka maanta marka labada film suuqa ku tartami doonaan filimka Dibangi Trina waa la soo saaray boorsamintadiiso maahan boorsamintada waa muuqaal yar oo ku saabsan Dibangi Tree Salman Khan baa hadlaya isla sidii buu filimkii hoos Dibangiyadu waxa lagu yaqaan Salman Khan inuu dharka askariga xirto askari waxa weeyaan askari u muuqdo ciyaala suuq u muuqda oo iska ciyaar hatta iska neekinaya iska daansi ciyaaraya mar kale Dibangi Tree wuxuu muuqdaa Dibangiyadii hore Salman Khan sharafkii ku caan ka uu leeyahay oo kiyaalii gadaal uu ka soo bixinayay kuleeti ka soo bixinayay la surinayay uu leeyahay sidii uu walwaalayahay oo asag uu leeyahay sidii uu yahay Dibangi Tree muuqaalka ugu horeeyay laga soo saaray wuxuu cadeynayaa Salman Khan inuu haddana mar kale filimkan kaaga yaabsan doono actor-ka weyn Salman Khan ayaa filimkan jiray waxaana director u ah ninka lagu magacaabo Borodeva oo Soomaalida u yaqaanaan boqorka marka Dibangi Tree muuqaalkii ugu horeeyay waa laga soo saaray Salman Khan mar kale ayuu filimkan kaaga yaabin doonaa Dibangi Tree waxa lagu wadaa in la soo saaro 20ka December baa lagu wadaa in la soo saaro waxaana laga sii deyn doonaa tiyaatarada Hindiga Tamilka Teluguga iyo Kannada waxyaabaha kale ayaan ugu miisan iyana aflaamta Hindiga ina waxa kamid ah Vidyut Janwal waa taqaan ninka kanu filmo badan oo action loo kana cunug caadi ma ahan marka qaarna laadar uu keenay mar badna laakiin inta badan atornimo uu keenay ninkan waa nin aan caadi ahayn oo diyaarsan waa macnaa JK Janwal uma leeyahay boodboodayo ninkan waa taqaanin ninkan ma aqaan midii kartiba ninkan waa taqaanin waxa la yiraahdaa Vidyut Janwal baa la yiraahdaa filimkii soo aadan ee Commando 3 xilliga la sii deyn doono baa la cadeeyay filimada Commando isaga baa keena haddaba qaybta saddexaad filimka Commando ee isagu soo wado xilliga la sii deyn doono baa la cadeeyay waxa la cadeeyay filimkan soo bixi doono 29ka bisha November ee sanadkan baa la cadeeyay inuu soo bixi doono filimka kan ee lagu magacaabo yani Commando 3 actor kan ee aad wada garanaysaan baan wado maanta baa la cadeeyay xilliga uu filimkan soo bixi lahaa marka 9 November ninka filimkiisa ku saaran oo ninkan waa nin toroba actionista ah sidoo kalena waxa la soo saaray boorsamintada filimka uu soo wado actor-ka weyn ee John Abraham oo ay la wado atrishada lagu magacaabo Devia Khosla maalmood waxaan idin sheegay in John Abraham uu saxiixay filim lagu magacaabo Sadyameva Jayeta filimkan hadda waxa la soo saaray boorsamintadiisa waxa la soo saaray kaartidiisa waa ka arkaysaan ninku wuxuu ku jiray askari walibana u muuqda inuu yahay nin yaani ma taqaana wadani ah waka calanka Hindi ka dhex muuqda meesha kaayo marka filimka uu soo wado ninka la yiraahdo John Abraham iyo gabadha isla soo wadaan waa ka la soo saaray boorsamintadiisa filimkan waxa lagu wadaa inuu soo baxo 2 October 2020 baa lagu wadaa inuu soo bixi doono marka waxa weeyaan wax 2020 2 October waxa weeyaan October teeda kale oo macnaa 2020 hadda se waxa aad loo hadalhayaa waa kee filimka meel saari doona filimkii dhawaan uu keenay Shahid Kapoor ka Birsin Shahid Kapoor maalin wuxuu keenay filim uu ku jiray nin askulista ah laba xabsiyaar uu cabayo filimkaas askulistinimadu ku jiray ka Birsin baa leedahay filimkaaye filimkaas Shahid Kapoor uu keenay wuxuu soo xareeyay dhaqaale aad u badan buu soo xareeyay filimka dhaqaalaha uu soo xareeyay waa dhaqaale inaba caadi ahayn oo filimku wuxuu soo xareeyay 278 karoor buu soo xareeyay waa filimka dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay sanadkan ku gudu jirnay 2009 uga gabagoomaraysa haddaba rekoorkan malyaal la jibin doona inta sanadkan aan dhamaan waxa soo baxay filim badan waxa la leeyahay marka filimka War ma jibin doona rekoorkan War oo ay wadaan Tiger iyo Heritic ma filimkan dhaqaale ka badan soo saari doona yani filimka uu waday Shahid dhaqaale ka badan filimkiisa siyaaso ma War baa soo saari doona leeyahay ee ay wadaan Tiger iyo ninka lagu magacaabo Heritic ama filimka Dibangi Tree Salman Khan ayaa rekoorkaas jibi doona oo isna sanadka inta dhamaan soo bixi doona ama filimka Hustle 4 ee wada Akshay Kumar ee shactirada ayaa rekoorkaas jibi doona lagu leeyahay ilaa hadda 2009 rekoorka sanadka lacagta ugu badan filim soo xareeyay Shahid Kapoor baa wata laakiin cod la qaaday taageerayaasha waxay cadeynayaan waxay leeyihiin filimka Shahid Kapoor waxa rekoorkiisa jibin doonay leeyihiin filimka lagu magacaabo Dibangi Tree waxay leeyihiin maahan War filimka Heritic iyo Tiger
ma jibin doono rekoorka shahid bay leeyihin laakiin dibangi baa jibin doonay leeyihin taageerayaasha cod laga qaaday waxay saadaaliyeen in filimka war aan wahayn filimka rekoorkaas jibin doona laakiin filimka Salman Khan ee dibangi 3 inuu yahay filimka rekoorka filimka shahid dhaqaalaha badan soo xareey jibin doona waxaana kan labaad soo galay oo codadka labaad helay filimka uu wado ninka lagu magacaabo Heritage Tiger War ayaa loo saadalinay inuu qad doono filimka labaad ee rekoorka inuu gaar laga yaabo يعني عددك labaad ugu badan waxa helay filimka ay soo wadaan war ay Heritage iyo walaan Tiger laakiin filimka dadka ugu badan codeeyeen 40% waxay leeyihiin dibangi 3 oo Salman Khan u wada baa noqon doona filimka rekoorka jibin lahaa laakiin dadka qalo waxay leeyihiin 36% waxay leeyihiin filimka war baa jibin doona halka kuwa kale 24 ay leeyihiin filimka Akshay Kumar baa jibin doona waan arki doonaa filimka cidda jibisa ama filimka jibiya rekoorka filimka uu keenay ninka lagu magacaabo Shahid Kapoor isla sanadkan intaanu dhamaan aktarada Bollywoodka ayaa u tacsiinaya aktarkii Vijay Qoti oo aan shalay ku soo gudbinay warbixinteena hore inuu geeriyooday oo aktar weyn buu ahaa oo yaraan 300 oo filim Hindiya keenay haddaba Rishi Kapoor Ajay Devgan ayaa kamid ahaa aktaradii baraha bulshada yaani ugu tacsiiday familka aktarka kan weyn Rishi Kapoor wuxuu leeyahay waan ku xiisi doonaa buu leeyahay kan halka uu leeyahay Ajay Devgan waxa nasiib kula xabuu leeyahay inaan kula soo shaqeeyo filim badan kula keeno ninka lagu magacaabo aktarka mucaanka ah ayaa gurigiisa ku geeyay isagoo codsaday in isbitaalka laga saaro wuxuu leeyahay guriga ku dhintay buu yiri waan ku dhintayo Vijay Qoti waa geeriyooday Ajay iyo Rishi ayaa u tacsiinaya intaan ku gabagabaynaynaa maanta aflaamta ugu waaweynaa ee Hindiga iyo maanta anigoo qadar badan la socodsiinaya nabadgeliyo